marka hore waxaan rabaa inaan idinla wadaago salaan aan idinka sido madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dowladda dhammaanteed oo idinkaga mahadcelinaya kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gasheen workshopkan oo looga hadlayo arrimo ahmiyad gaar ah u leh dalkan oo ah sidii loo mideyn lahaa aan dhammaanteen meel ugu soo wada jeesan lahayn inaan ilaashano amnigeena qaranka. marka aad iyo aad ayaan idinku soo gudbinaya mahadcelintaas iyo ammaantaas ay ka timid xagga mataqaanaa madaxda sare. waxaan sidoo kale ku darsan doonaa aniga nafteyda ammaanteeda waa idinkaga mahadcelinayaa aqbalaadii iyo aad aqbasheen haddana aad si fiican participation fiican ama doodihii socday aad ugu qayb gasheen aadna u muujiseen mataqaanaa ra'yigiina. taasi waxay ku tusaysaa in si hufnaan ah Soomaalida markay wada fariisato in wax walba ay ku heshiin karto. Soomaalida heshiiska iyo muxuu ahaa wada tashiga iyo wada shaqaynta ama wada fadliga aad bay u fiican tahay, laakiin markii fulinta la gaaro ayaa xoogaa la gaabinaya fulinta markii la gaaro. marka waxaan jeclaan lahaa talana aan kusoo jeedi lahaa mar walba wax lagu heshiiyo haddana habraaci fulintiisa in lagu daro iyo kala qaybsanaanta qof walba mas'uuliyadii ay ka qaadan lahayd. waayo amniga maaha wax u gaar ah ama dowlad goboleed ama waa wax taabanaya dalkan oo dhan. falsafad dhahaysaa jirto isku xiraysa amniga iyo cadaaladda iyo horumarka. waxay ku leedahay falsafadaas ma jiro horumar hadduusan cadaalad ay jirin, cadaaladna ma jirto hadduusan horumar jirin, labadaba ma jiri doono hadduusan nabadgelyo jirin. marka wax walba oo bini aadamka noloshiisa ku habaysan waxay ku salaysan yihiin nabadgelyadiisa, cadaaladiisa iyo horumarka isku filnaanshaha qofka uu leeyahay ay ku xiran. marka waa wax wada mataanaysa marka saddexdaba waa wax wada mataanaysa waa wax marka gooni ama qayb aan loo kala qaadi karin. waa wax mas'uuliyad wadareed xataa shacbigu xataa uu ku jiro markaas. shacbiga nabadgelyadiisa ilaashado ayaa wax soo saari karo, shacbiga nabadgelyadiisa ilaashado ayaa cadaalad samayn karo, madaxdana sidoo kale ay u taabanaysaa. marka dhammaanteen waa waxna taabanaya. haddii aan usoo noqdo hawshan gaarka ah aad maanta idinka halka u fadhideen labada maalmood aad u fadhideen aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa. kulankan wuxuu ahaa mid muhiim ah. ujeedadiisana waxay ahayd in la xoojiyo wada shaqaynta annaga iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka dhaxeeyo si aan u helno hanaan aan ku wada shaqayn karno oo ku salaysan shuruuc iyo timetables iyo mas'uuliyadda oo aan qaybsanayno. dowlad kaliya wax ma tarayso, wax ma fulin karto haddiisan garbihii ay ku duuleysay iyo garbihii ayada ay ku dhisneed iyo maskaxdii ayada ay ku dhisneed haddii aydan la shaqaynin. especially marka laga hadlayo nabadgelyada ma la siyaasad ma gasho. nabadgelyada waa wax wixii maanta xamar ka dhaco biri Hargeysa ka dhici karaan, Boosaaso ka dhici karaan, Garowe ka dhici karaan, Kalkacyo ka dhici karaan, Baydhabo ka dhici karaan, Kismaayo ka dhici karaan, Johor ka dhici karaan. maanta waliba waxaa la yiraahdaa insecurity waa global oo maanta wixii halka ka dhaco in 24 hours Mareykanka ku gaari karaan. waa tan dhahayso la dagaalanka argagixisada waa mid adduunka oo dhan u dhaxeeya maaha mid meel ku kooban. meeshuu ku koobnaa nafteeda in loogu tago ayaa la goostay. mararka hore sida aad ogtihiin siyaasadaha adduunka waxay ku bees garaan jirneen war meesha terrorka ka jira ama nabadgelyada darada ka jirto meesha aan ku koobno aan ku containment waxa la yiraahdo policy ay sameyn jireen. laakiin hadda for the last 10 years waxaa soo baxday in meesha kaliya lagu contain gareyn karin oo meesha banaanka ay aadi karto oo meel kasta aadi karto. marka si wada jir ah oo global ah in lala dagaalamo ayaa soo baxday. annagana sidaas oo kale u tahay. waa adduunka marka laga hadlayo kan markaan dalkeena aan ka hadlayno waa si global ah oo si muxuu ahayd state wise ah inaan ula dagaalno oo federal wise ah inaan ula dagaalno. waa sax qaab dhismeed ayaan ku heshiinay 23 kaasa inuu aan saldhigan inoo noqon doono. laakiin kaas saldhigiisu wuxuu ku xiran yahay mar walba annaga inta aan joogno inuu xiran oo siyaasiyiin aan ahayn oo ah technical ah sidaan macaamilkaas aan usul shaqaysan lahayn aan isku dhaafsan lahayn wararka iyo xogtaba aan isku dhaafsan lahayn. waxaa loo baahan yahay xafiisyada inaad isku xiran oo xafiis dowlad goboleed iyo xafiiska qaranka inay isku xiran yihiin ee isdhaafsanayaan xogta ee isdhaafsanayaan xagga wixii ka dhici kara biri halkaan u imaan karaa. marka xogtaasna inaan isdhaafsano oo system aan xataa shirka kaliya maahan system aan si joogto ah isugu xirannahay inaan abuurno ayadan waa very important. nota annaga sidaas sheegteenba siyaasiyiin malihin walaakiin waxaa naga dhexeeya oo laga maarmaanka ah waa nabadgelyada, xajinta ilaalinta nabadgelyada qarankeennan annaga iskale kulligood cid u gaar yahay ma jirto. annagaan ilaashanayn inaan ilaashano annaga ayaa nalaga rabaa. aad iyo aad marka haddii idin isu soo jeedinaya waxaan rajeynayaa wixii meeshaan aad ku gaarteen
in meeshii laga sii wado aysan naqanin wax ku hakado maanta kaliya ku hakado wixii kale oo mataqaanaa faahfaahin ah iyo isku soo dhawaasho ah cid walbo rabto mataqaanaa inay xafiiskeena gaar ahaan xafiiskay waxaan leeyahay maanta waxa ka dambeeya xafiiskayga waa idin furiyiin ama xamar imaada ama gobolkiin imaada waxaan dowlad goboleedka ka timid aan jooga xafiiskaas waa ka tirsantihiin si joogto ah maalin ah habeen ah ayuu diyaar ku yahay idin qalbi furan oo idinku soo dhaweena annagana xagga sidaas oo kale aan jecelnahay inaad nagu soo dhaweysaan la'aantiin ma socon karna annaga marka for that reason waxaan jeclaan lahaa xiriirkeena xiriir joogto ah inuu noqdo aan isla wada shaqeyno sidaan idin sheegayno waa idin soo dhaweynaynaa idigana si fiican noo soo dhaweyseen waan idinkaga mahadcelinayaa contributionka iyo talooyinka aad ku darsateen concept note-ka saasoo u fulaan sida idinka aad ku soo jeediseen isla ogolaateen oo ku fulaa waxaan yeelan doonaa shirar joogto ah insha Allah taala sida waxaan ku soo gabagaynaa mar labada waa mahadsantiin waxaan kaloo mahad gaar ah u jeedinayaa qolada UNDP qolada UNTMIS qolada IOM iyo nin kastoo mataqaanaa international community ka socdo oo shirkan ka qayb galay oo mataqaanaa talooyin iyo wax ku oola iyo presentation fiican ka bixiyay laakiin waxaan ku soo gabagaynaa mahadsanidin wabillahi tawfiiq